qaar bay gooran jeed dadka ma been bad u sheegaysa nin fadhiya baad xagga dadka ka soo helaysa wadkii inaad tagto u baahan yahay xaqiijin buu u baahan yahay habeen anoo telefishanka daawanaya ayaa waxa dhacday in uu soo galo xayeysiis iskuul cusub oo saxaafadda lagu barto walaalahay baan u diray inay iskuulka ka war doonaan warbixin ay ka soo siiyaan markay u tageen ayaa waxa dhacday macallinkii wax walba oo aniga igu saabsan way u sheegeen labadii iskuul xaaladan kala kulmay runtii macallinkii wuxuu sheegay inuu arrinka ka xun yahay teeda kalena wuxuu sheegay inuu iska soo qaadayo aniga Maxamed ahaan isagoo wax saxaafad doonaya wuxuu markaa Maxamed ka yeelay isaga ii soo diray buu yidhi saan isaga u kulanno ana waan u tagay subaxii labaadba isagoo warbixintaydii haya macallinku wuxuu sheegay inuu saxaafadda bari doono muddo koobanna igu bari doono caadiyan 6 bilood baa la bartaa saxaafadda 2 bilood baan kugu soo koobayaa buu yidhi macallinku halka wax ku barayay macallinku waxay ahayd meel dabaq ah laakiin meel dabaq ah ku xigto oo geerish baabuurta lagu iibsho ayaa buu yidhi ayaan xiisada kugu siinayaa subaxii halkaas aan tagi jiray intaan computerkayga iyo buugaagtayda sii qaato xiisadayda halkaas aan ku qaadan jiray walow aanay meesha u qaabasnayn qof arday wax baranaya wax ku barto laakiin aniga dee hamigayga ah inaan saxaafadda barto halka ii fudud aan wax ku baran karayana waan jeclaanayay waanan doonayay inaan ku barto caqabada ugu culus ee noloshayda soo maray horta nolosha sideedaba caqabad bay ka samaysan tahay noloshan qofka bini'aadanka oo maro ayaa caqabad wax ilaahay u abuuray in qofku caqabad maro caqabadaha aan tilmaami karo horta caqabad ka weyn ma jirto adoo si u noolaa si ku barbaaray si ku kacaamay in aad daqiiqado yar iyo bilo yar iyo maalmo yar ay noloshaada isu bedesho anoo soconayay ayaan noqday shakhsi noloshii ka baxay 12 sano oo ku soo noolaa galay nolol kale oo ka duwan la qabsigeedu ku adag yahay marka caqabada ugu weyn taas baan oran karaa caqabadaha kale haday noqoto kuwa deegaankan kala kulmay kuwa ii diiday inaan saxaafadda barto ayaan ku sababayn karaa jaranjarta iyo dhismayaasha wadanka horta inaad kufto ceeb maaha laakiin inaad kici weydo ayaa ceeba caqabadaha dhan ee nolosha soo maray waxaan kaga soo gudbay anoo dadaalaya oo samraya oo dul qaadanaya ilaahayna tala saaranaya marka wax kasto oo aad isku daydana waad qaban kartaa caqabad kastana waxaan kaga soo gudbay anoo dadaalaya anoo dul qaadanaya anoo samraya taladana anoo ilaahay u dhiibtay baan kaga soo gudbay dadkoona oo caawinaya anoo og inaan ahay wiil aan laxaadkiisu u dhamayn waliba waxaan baranayo waxaan jecelahay saxaafadda aanay dadkan sideedoo kale aanay badanka wadankan sameyn ama aanayba noqon waxaan jeclaabay ayadoo igu jira hankuna qofkiis wuu gubaa marka waxaan way gubayeen anna waxaan jacayl badan baan siiyay dadaal badan marka qof walba ninay meel u cadahay meel ka madoobay Soomaaliyeed waxaan way caday marka saasaan ku noqday inaan waliya noqdo markii hore waa dad badan way igu lahaayeen way adkaanaysaa qof naafa inuu waliya noqdo way adagtay lagu oran jiray ma fududa waxyaabo badan baa lagaaga baahan yahay qaar bay igu oran jiray dadka ma been bad u sheegaysa nin fadhiya baad xagga dadka ka soo helaysa wadkii inaad tagto u baahan yahay xaqiijin buu u baahan yahay imkana ma de warka uma socdo oo socdaal ma galo wuxuun baan sameeyaa war la diyaariyay dad editing sameeyaan baan akhriyaa anoon sodcaal u gelin marka sawirkii marka ay haysteen imika waan beeniyay imikana dadku ay soo dhaweeyaan way sharfaan meel kastoon tago dadku mid ay qaabilaan waji wanaagsan ku qaabilaan baan ahay dadkii waan soo dhex galay in ugu filan dadka waan isnaqaanaa in ugu filan asxaab baan nahay dad badanna inaan barto waan doonayaa oo nolosha ayaa ah in dad badan
noloshaada ku soo biiraan waxa xiga waxa weyn inaan noloshaadii sii wato noloshaydu inaan weriye noqdo iyo inaan suxufi noqdo dee kuma koobna qaybo kala duwan bay leedahay qaybaha kala duwan ee noloshayda anoo dadaalkaygiina sii wada ayaan dee sii wadi doonaa